السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسدو برنامج كيني سامين توركا. نعكو دربي هذا هاتيرو عدو درجة inta ayna barnaamijka guda gelin channelka subscribe saar videogana like saar sina share garay si uu gaaro wacnaadiga oo kale inta kadib isku soo noqod wanaagsan waxaynu maanta mowduuceena kaga hadli doonaa hees uu soo saaray fanaanka weyn ee Dayaxdal Muruushan heestan oo u dhici doonta oo midhaheedu u dhici doona sida tan si kasto dadaaliyo waqti doona ugalumo dameer gaari waa faras dameer gaari waa faras daawada heesta ayaa u eeg hees uu fanaanku ku wada nacabkiisa heesta ayaa la magac baxday dameer gaari waa faras haddaba waxaynu si cad u dul istaagi doonaa saddex arrimood ama saddex qodob taas oo ama inooga shaki saari doona ama inoo cadeyn doona heestan qofka lagu wado qodobka koowaad heestan ayaa imanaysa waqti ay khilaaf ka dhaxeeyeen dhigiisa Khadarkiyo ay isku magaaladana yihiin isku wadankana yihiin isku jinsiyadana yihiin oo ay iskuna khilaafsanaayeen xaflad ka qabsoontay goob hudheela oo alfanaan Dayaxdal Muruushan iyo xaaskiisa lagu qeyliyay sikadiisa uu soo galay oo laba filaanana uu soo galay Khadarkiyo loona kacay iyadoo oo shacabkii halka joogay ku dhawaaqayeen rageed taas oo ay macnaheedu tahay lagu dilayay Dayaxdal Muruushan qodobka labaad fanaankani ma yahay fanaan ay taageeraan shacbiyad gaadhaya wali show uu leeyahay ma ka soo qayb galeen 1000 qof jawaabtu waa maya showgiisii ugu horeeyay waxa ka soo qayb galay 700 oo qof fanaanka waa fanaan Dayaxdal Muruushan qodobka saddexaad alfanaan Khadarkiyo ma yahay fanaan ay taageeraan shacbiyada ama showyadiis ka soo qayb galaan shacbiyad gaadhaya 1000 qof ama kor u dhaafa jawaabtu waa haa waayo waxa dhacday maalmaha kamid ah oo sikadiisa isagoo u jooga xeebta Liido in ay waqti kula qaadanayay xeebta Liido kana soo qayb galeen in gaarisa 1700 oo qof ilaa 1800 oo qof saddexda qodob marka laga yimaado fanaan Dayaxdal Muruushan waxa uu ama ka hinaasay ama uu ka xanaaqsan yahay dhigiisa Khadarkiyo laguna hor ceebeeyay laguna hor hadal taagtaagan laguna hor yiri showga isaga awgii looga saaray isagana lagu soo dhaweeyay marka waxaynu oran karnaa daawade heestu waxay xambaarsan tahay murti ah in loo jeedo alfanaan Khadarkiyo balse ilaa imika oo ay heestan ka soo wareegeen 2 cisho ayaan wax jawaabi ka soo bixin afka Khadarkiyo balse la sugayaa ilaa hadda wixii uu ku soo jawaabi la fanaan Khadarkiyo daawade intaas ayuu barnaamijkeenu inoogu xiran yahay iyo isla sug wacan ilaa jawaabta fanaan Khadarkiyo alfanaan Khadarkiyo